runtii walaalayaal anaga waxaan nahay shaqaalahaas oo kale. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyey nimcooyin aad u badan, laakiin nolosheena waxaan ku dayacnaa raadinta hal nimco oo naga maqan oo Allah subxaanahu wa tacaala nooga qaaday xikmad ka mid ah xikmooyinkiisa. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائع ما يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ. boqor ayaa wasiirkiisa wuxuu ku dhahay, maxay tahay waxaan u murugsanaya aniga oo aan farxad u haysan, halka shaqaalahayga aan haysan waxba uu markasta u faraxsan yahay. wasiirkii wuxuu ku dhahay, boqor waxaad soo qaadataa boorso, waxaadna ku ridaa 99 diinaar, waxaadna ku qortaa 100 diinaar oo hadiyad ah. kadib waxaad samaysaa gurigiisa hordhig, albaabkan u gargaraaca. boqorkii wuxuu sameeyey sidii wasiirkii faray. ninkii markii uu lacagta qaatay korna uu ka fiidiyey inay tahay 100 diinaar, wuuna farxay, wuxuuna bilaabay inuu tiriyo lacagtii. markii uu tiriyey waxay la noqotay 99 diinaar. markaa buu ehelkiisa ku dhahay, halka diinaar ee naga maqan laga yaabee inuu banaanka ku dhacay, nakeena aan raadine. reerkii habeenkii oo dhan waxay raadinayeen diinaarkii, waxba ma aynan helin. subaxii markii la gaaray ayuu soo kacay shaqaalihii, wuxuuna aaday goobtiisii shaqada isagoo aan wax farxad ah ka muuqan. muuqaalkiisa qofkii arkana uu kanaxayo ayuu u tagay boqorkii. runtii walaalayaal anaga waxaan nahay shaqaalahaas oo kale. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyey nimcooyin aad u badan, laakiin nolosheena waxaan ku dayacnaa raadinta hal nimco oo naga maqan oo Allah subxaanahu wa tacaala nooga qaaday xikmad ka mid ah xikmooyinkiisa. haddaba walaalayaal aan ku raaxaysano 99kaas nimco. sidoo kale Allah subxaanahu wa tacaala markasta u mahadceli, hana ilaabin la in shakartum la asiidannakum, haddaad iigu shukrisaan waa idin siyaadinayaa ayuu yiri Allah subxaanahu wa tacaala. waad ku maasan tahay daawashadaada. haddii aad daabatay muuqaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad la garayso, sidoo kale la wadaagta asxaabtaada si aan u helno asxaab sida adigoo kale. fikirkaaga qaybta hoose ee faalada nagu soo gudbi, waxay noo tahay dhiirigelin aad u weyn. ramadaanul kariim.